Assalaamu calaykum. Maanta halkan uga jeedaan Bitcoin waxay maraysaa ama ku dhowdahay 40,000 oo dollar. Maalin dhaweyto ama dhowr isbuuc ka hor waxaan soo geliyay video aan leeyahay Soomaalida ku baraarugto Bitcoin. Maalintaas waxay maraysay 34,000. Waxa kor u kacay ilaa maalintii ilaa hadda dhowr isbuuc ka hor 5,000 wax ka badan ayay maalintii kor u kacday. Hadda maalinta hal xabo iibsan lahayd maanta 5,000 oo profit ayaa joog lahayd. Marka Bitcoin si u socod trendigeeda u jeedaan kor u bay socotaa marmar hoos u dhacaysa way jirtay oo wax walba oo wax garantiya ma jiraan laakiin saan hore u sheegay in badan Bitcoin wax u badan tahay inay xilliga hore intay gaartay in ka badan ay gaari doonto 69,000 ayay gaartay markii ugu badnayd 2021 laakiin inay dhaafi doonto ayaan aaminsanahay hadda dhowr sababoodana hore u soo sheegay sababta koowaad oo ah ETF wax la yiraahdo spot ETF oo exchange-ga Mareykanka qolada u qaabilsan SEC la dhaho u qaabilsan kambaniyasha la register-gareeyo sida stock oo kaleeto ayaa wax u badan tahay inay approve gareeyaan kambaniga BlackRock oo aan hore idinkaga sheekeeyay oo ah kambaniga ugu weyn oo asset-ka ugu weyn haya adduunka oo 9 trillion lacag ku dhow trillion waa lacag aad u badan haya haddii dadkaas ay asset-ka u hayaan ay facility ama awood u yeeshaan inay trading ama kala iibsadaan ama iska gadaan Bitcoin oo 9 trillion ka soo qaad 1% oo kamid ah hataa dadkaas haday iibsadaan Bitcoin waxa soo galaya wax la dhaho liquidity ama lacag badan ayaa soo galaysa oo kor u qaadi karta qiimaheeda marka sababtaas ay dadku waxay isleeyihiin hadda waxay kor ugu socotaa number 1 sababta koowaad waxa weeye in BlackRock iyo kuwa kale BlackRock kaliya maahan way badan yihiin inay la approve gareyn karo ama dawladda Mareykanka ay approval siin doonto dhaqso aduu January ama bishan December ama bisha dambe waa la rajeynaya hadii Ilaahay yiraahdo hadii la approve gareeyo marka dadkaas 9 trillion ka kambaniyashaas haysta iyo ka badan ay suuqa soo galaan qiimaha waxa la rajeynaya inuu cirka tago marka qof walba wuxuu leeyahay kaga hormar oo yaan macnaha kambaniyashaas lacagta badan haysta inta Bitcoin wada qaadan adugan ka hormar waxa iibsan kadib sababtaas ayaa keenaysa in Bitcoin waayadan dambeeto ay dib u soo noqoto kor u socoto waxa kale oo iyadana xiisa sii gelinaya sanadka dambe 2024 oo hadda bil kaliya nooga dhimantaa bishan ku jirno sanadka dambe April bishiisa afraad waxa dhacaya Bitcoin halving waxa la dhaho Bitcoin 4 sano waxay noqotaa half ayaa laga jiraa oo tusaale ahaan maalin walba hadda xilligan hadda la joogo 4 sano hadda lagu jiro oo ay dhamaan doonto April ka hor inta dhamaan 900 oo Bitcoin ayaa maalintii soo baxda sidoo ku soo baxda waa wax mining la dhaho kambaniyashan mining-ka dhowr jeer ka sheekeeyay marka la isku wada daro qiyaas ahaan 900 oo coin ayay mine gareeyaan 24 saac marka sanadka dambe April markii la gaaro half ayay 900 noqonaysaa waxay noqonaysaa 450 coin ayaa soo baxaya afar walba oo sanaba saas ayay u sii dhimaysaa oo sanadka 4 sano ku sii xigtana waxay noqonaysaa 225 saas ku soconaysaa ilaa ay Bitcoin ka dhamaato 100 sano ka badan kadib waayiga bilowtay 4 sano ka hor waxa soo bixi jirtay 1800 oo coin maalintii 24 saac 4 sano ka horna laba ku sii dhuftay intaas ayaa soo bixi jirtay maalinta iyagana marka Bitcoin maalinta ugu horeysay ninka soo saaray Satoshi ayaa saa ku programiyay 110 sano meelahaas roughly 2140 meelahaas ayaa xabada ama sentiga ugu hooseeya Bitcoin la mine gareyn doona marka oo ay dhamaan doontaa blocks-kan soo baxay marka halving-ka wuxuu keenaa inuu qiimaha uu kor u kaco maxaa yeelay hadda 900 oo maalin walba soo galaysa kambaniyashan Bitcoin mining ku sameeya oo way sell gareeyaan markay sell gareeyaan suuqay soo galaan sababahaas ayaa keenaya in qiimuhu hoos u dhaco oo kambaniyashii Bitcoin mining gareynaya ayaa suuqa ku gada maalin walba sell gareeya marka qiimaha waxa soo galay supply-ga ayaa badan marka supply-ga hadii la sii yareeyo oo 450 noqdo waxa badanay demand-ku uu wali sidii yahay ama sii bato sababta ayaa keenaysa inuu qiimaha kor u kaco supply demand bal dhaha qiimaha taas ayaa kor u kacaysa wax walba oo supply-gooda bato qiimahooda ayaa hoos u dhaca wax walba demand-kooda batana qiimahooda ayaa kor u dhaca demand-ku waxa way baahida loo qabo in la iibsado supply-guna waxa weeye in wixii quantity ama numberkii wixii ama tiradii coin-kii faraha ka bato ciida ka bato markaasna qiimaha ayaa dhacay marka Soomaaliya maalin horena waan sheegay BlackRock iyo kambaniyasha weyn trillion lacag haysta markay soo galaan oo news ka maqashaan Bitcoin waxay gaartay 60,000 ama 70,000 ama 100,000 ama ka badan ayaa la soo kala ordi doonaa
laakiin inta hadda ay dhulka taalo badanaa dadku ma xiiseeyaan Soomaalida kaliya oo dadku normalka caadiga la socdaan oo sidaas ah marka intiin hadda la socota waxaan leeyahay go'aankiina idinka iskale laakiin hala la socdo isha ha lagu hayo aad ayaa u mahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh